19 May sanadkii 2021 Ibrahim Easy waxa uu ku jiray bartamaha tababarkiisa maalinlaha ah. Gareth Southgate tababaraha xulka qaranka Ingiriiskuna xafiiskiisa ayuu ku diyaarinayay listiga ciyaartoyda xulka qaranka Ingiriiska uga qayb galaya tartanka Yurada. Easy oo hal xil ciyaareed oo kaliya ciyaaray horyaalka Premier League isaga oo jira da'da 23 sano waxa uu dareemayay fursad aad u yar inuu haysto. Laakiin kubadda cagtu waa hoyga riyooyinka. Qolka labiska ayuu ku jiray waxaana markaasi gariiray telefoonkiisa. Waxa ku soo dhacday fariin ka timid FA-ga Ingiriiska taasi oo aan la filayn. Waxaana ay sheegaysay in xulka qaranka looga yeeray. wixii taasi xigayna waxay ahayd waxaan caadi ahayn intii u dhaxaysay fariintaasi iyo dhamaadkii tababarka maalintaasi iyadoo uusan jirin ciyaaryahan u soo dhawaaday ama cid kale oo wax xiriir la samaysay mid ka mid ah seedihiisa ayaa go'day sabab la'aan si lama filaana. Wararku waxay sheegayaan in dhammaan shaqaalihii ay argagixeen ciyaartoyduna ay ooyeen naxdin darteed waliba iyagoo aan ogeyn in xulka qaranka looga yeeray. Easy waxa uu jiiftay miiska daaweynta kadibna waxa uu codsaday in loo keeno telefoonkiisa markaasna waxa uu arkay fariintii wargelinta ahayd. waa dhacdo xun taasoo qaadatay inuu ka soo kabto muddo 4 sano ah. dhaawac noocaasana dabcan ciyaartoyda inta badan waa uu dilaa. ha yeeshee Ibrahim Easy tani ma ahan wixii ugu xumaa ee ku dhacay. aynu isla eegno sheekadan dhacday ka hor dhaawacan. isagoo oo jira da'da 13 sano Easy waxaa laga saaray akaademiyadda Arsenal waxayna ahayd naadigiisii carruurnimada iyo riyadiisa kaliya. waxaan xasuustaa inaan toddobaadan ooyayay anigoo fadhiya qolkayga. hooyaday waxay ii sheegi jirtay inay wax walba hagaagi doonaan laakiin anigu ma aanan awoodin inaan ka gudbo taas. waxaan u wareegay Fulham markaasna mar kale ayaan ku raaxaystay kubadda cagta laakiin waxaan la ciyaarnay Arsenal dhowr bilood kadib. markii aan u tagay si aan u gacan qaado tababarahoodana waxaan bilaabay inaan dareemo wax fiicnaan ah. dareenkii hore oo dhan ayaa soo laabtay. laakiin ujeedadeenu dhacdadaasi ma ahee kadib 3 sano oo Fulham ku qaatay isagoo jira da'da 16 sano waxa ay soo waceen isaga oo qaadanaya fasaxooda Christmaska waxayna u sheegeen inuusan ku soo laaban kooxda oo uu ka fasaxan yahay. kooxda Reading ayaa qaadatay kadibna waa iska direen waxaana uu dareemay xoogaa ciriiriya waxaana uu fursad tababar iyo waxbarasho ka helay kooxda Millwall laakiin diidmadii saameyn ayay ku yeelatay waxaana isaga oo jira 18 sano uu wali ka ciyaarayay kooxda labaad ee Millwall. waxay u sheegeen inuusan ahayn ciyaaryahan Millwall ah oo uusan weligii sidoo kale ku guuleysan doonin inuu kooxdooda ka mid noqdo. taasina waxay ahayd fariinta guud ee ay u direeyeen dhammaan naadiyadan. waxay u arkayeen sidii ciyaaryahan aan ku habboonayn inuu ka ciyaaro garoomadooda waaweyn kaasi oo u bedeli kara garoomadooda sida jardiimooyinka koonfurta London uma aysan arkayn inuu yahay xidig mustaqbal leh. hase yeeshee waxa aysan ogeyn inuu mustaqbalka noqon doono mid farsamo badan oo difaac kasta istaaga ka rida. kooxo ay ka mid yihiin Sunderland, Bristol City iyo Swansea ayaa diiday. waqtigaasina naadiyada diiday waxay ka badnaayeen kuwa fursadda siinaya. waxa uu bilaabay inuu ka fakaro nolol ka baxsan kubadda cagta ha yeeshee ma uusan jeclayn waxbarashada xitaa tijaabooyinka kale waa uu ku dhici jiray waxaana uu dhammaan tijaabooyinka kaga tegi jiray iyaga oo qabyo ah. wakiilkiisuna waxa uu la soo hadlay maalintii dambe isaga oo ku yidhi waxaa jirta hal fursad oo imtixaan ah taasina waa QPR ama Queen's Park Rangers. fursaddaasi si adag ayuu u qabsaday oo 9 gool ayuu ku dhaliyay 14 kulan oo u ciyaaray kooxda labaad ee QPR. 8 toddobaad kadibna markii tababaro cusub kooxda loo magacaabay si lama filaan ah ayaa magaciisa loogu arkay listiga kooxda koowaad. waliba waxaa cajiib ahayd inuu ka mid noqday 12 ciyaaryahan ee ku soo bilowday kulan FA Cup ah oo ay la ciyaareen kooxda Blackburn. laakiin sidii aan horeyba u naqaanay kaliya 15 daqiiqo gudahood iyadoo aysan jirin wax jug weyn oo ku dhacday waa u dhacay isla markaana bedel ayaa lagu saaray oo waa uu dhaawacmay. taasina waxay keentay markii xigta ee garoomada lagu arko inay noqoto 8 bilood kadib iyo horyaalka heerka afraad. isagoo aan wax fursad fiican ka helin kooxda QPR, Scott ka socday kooxda Wycombe Wanderers ayaa helay Easy oo ciyaaraya heerka 23 jirada isagoo oo kubadda ku soconaya ciyaartoyda dhexdeeda isla markaana u dhalinaya goolasha sida uu doono. waxaana uu la yaabay in QPR ay ogolaatay inay xidigaasi amaah ku dirto. 2 toddobaad gudahood waxa uu xirnaa fanaanada kooxdiisa si lama filaanana waxa uu bilaabay inuu kubadaha ka toogto meel aad u fog isla markaana uu ka dhaliyo geeska sare ee goosha. tababaraha QPR-na waxa uu go'aansaday inuu dib u soo celiyo Easy isaga oo joojinaya muddadii uu amaahda ku joogi lahaa kooxdaasi. waxa uu ballan qaaday inuu weerarka kooxda ku dhisi doono Easy. haddana taasi ma dhicin ilaa saaxiibkiisii kooxda James Bridge uu yiri waxaan daawanayay tababarka kadibna waxaan ka fakarayay sidee ayuu wiilkan asbuuc kasta ku ciyaari waayay. tababarihii kooxda Steve McLaren isaguna sidaas oo kale ayuu dareemay oo waxa uu go'aansaday inuu lambarka 10aad u xiro Easy waana funaanadii uu xiran jiray halyeygoodii Adil Tarab. Easy isaguna waa uu ka faa'iideystay fursadaha oo waxa uu dhaliyay goolashiisii uu caanka ku ahaa.
bishii Oktoobarna waxa uu ciyaaray xulka Ingiriiska ee 20 jirada. warar ku saabsan Tottenham inuu ku biiraya ayaa soo ifbaxay markii uu wariye weydiiyey farqiga u dhaxeeya tababarayaashiisii kala dambeeyay ee QPR-na isagoo isku dayaya inuu si idabla u jawaabo. ciyaaryahankii Martin Ram ee saaxiibkiisa ahaa oo agmaraya ayaa ku qayliyey McLaren ugu yaraan wuu ciyaarsiiyey, taasina waa bilowga. laakiin mustaqbalkiisii sida quraxda u soo baxayay ma ahayn mid sidaas oo sii qurux badnaada. xilli ciyaareedkiisii qaybtii dambe waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u liita. Izina waxa uu qirtay in dhaleecaynta baraha bulshadu ay saameyn ku yeelatay madaxiisa, xitaa taasina waxa ay sababtay in kooxda Tottenham suuqii marka uu furmay ay ka laabato, taasina waxay ku ahayd niyad jab. laakiin fasaxii xagaaga maskaxdiisa waxa uu ka nadiifiyey wax kasta oo horey loo yiri. xilli ciyaareedkii xigayna waxa uu ku bilowday gool cajiib ah oo ciyaaryahanno badan soo dhex maray. dabadeedna Luton Town ayuu ku bixiyey baas cajiib ah oo gool noqday. kadibna waxa uu dhaliyey gool uu ka toogtay meel 30 yaard u jirta goosha, waxaana uu ku fiicnaa dhammaan tirakoobyada. xitaa cudurkii faafay ee COVID-19 ma joojin, waxaana uu ku lug lahaa 33% goolasha kooxda, isagoo ahaa gool dhaliyaha iyo caawiyaha ugu sarreeya. 22 gool ayuuna toos uga qayb qaatay. waxa uu qaatay dhammaan abaalmarinadii sida ciyaaryahanka sanadka ee kooxda. agaasimihii ciyaaraha ee kooxdana waxa uu sheegay inuu noqon karo ciyaaryahanka ugu fiican ee weligiis la shaqeeyey. haddana mar kale Tottenham waa iska diiday. laakiin Crystal Palace marnaba taa ma samayn oo iyagu waxa ay ku tiirsanaayeen Wilfried Zaha. kooxdooduna waxay ahayd midda ugu da'da weyn horyaalka Premier League, waxaana ay doonayeen inay ku beddelaan Jiil Da'yara. waxayna qaateen khatar weyn oo Easy waxa ay ka dhigeen saxiixooda saddexaad ee ugu qaalisan abid, halka uu sidoo kale ahaa ciyaaryahanka ugu qaalisan ee QPR ay iibiso. kadib dhowr bilood oo kursiga kaydka fadhiyey, kubad laad xora oo cajiiba ayuu dhaliyey kulankiisii labaad oo ciyaaray 90 daqiiqo oo dhammaystiran. jawigana waa uu dejiyey. bishii Janaayana waxa uu goysmo ku dhaafay ciyaartooy badan isagoo oo dhaliyey gool qurux badan oo u sharaxna goolka ugu quruxda badan sanadka. tababaraha xulka Nigeria waxa uu bilaabay inuu toddobaad kasta waco. bishii Mayna waxa uu mar kale goysmo ku wada dhaafay inta badan ciyaartooyda kooxda Sheffield United isagoo ka dhaliyey gool aad u cajiib ah. laakiin isla bishaasi mar kale waxa uu la kulmay dhaawac. Easy waxa uu ka gudbay dhammaan saadaasha isaga oo ku soo laabtay 5 bilood gudahood, xilli ay wararku sheegayeen inuu maqnaan doono 7 ama 8 bilood. laakiin waxa uu ku soo laabtay si degdeg ah. Patrick Vieira ayaa tababaro noqday. Mikel Olise oo isna horey loo diiday markan waxa uu noqday xidig cusub oo ku soo biiday kooxda. Conor Gallagher isaguna waxa uu la wareegay hogaaminta kooxda. Isina sida uu mar dambe qirtay waxa uu mar walba isweydiinayay mar dambe marnaba kuma ciyaari doono heerkaygii ugu sarreeyay ee aan joogay. hal xil ciyaareed oo dhan ayuu ku dhamaystay kaliya 600 oo daqiiqo uu garoonka ku dhex qaatay. xil ciyaareedkii xigay isagoo uu ku dhowdaada 25 sano, xitaa isagoo oo goolo dhalinaya bishii Janaayo, Vieira mar kale ayuu kursiga kayd ka dhigay. taasina cawaaqib xumadeeda waa uu helay oo 13 kulan oo isdaba jooga ayuu gaari waayay wax guula. taasina waxay keentay in shaqada laga ceyriyo. Roy Hodgson oo ka soo laabtay howlgab ayaa la wareegay hogaaminta kooxda, wuxuuna Easy dib ugu soo celiyey qadka dhexe. Easyna hal daqiiqo ma seegin xil ciyaareedka intii ka harsanayd. isla markiiba Crystal Palace waxay galeen 10 kulan oo laga badiyey kaliya 2 kulan. Easyna waxa uu ku biiriyey waqtigaasi kooxda 7 gool isagoo si mucjiso u dhammaystiray xil ciyaareedkaasi isagoo gool dhaliyaha kooxda. ugu dambeyntiina waxa uu mar kale helay in looga yeeray xulka qaranka. ugu dambeyntiina waxa uu si rasmi ah u soo gaaray halkii uu sanad ka hor waayay. laakiin waxa ugu xiisaha badan waxay ahayd in muddadaasi isaga iyo Olise ay noqdeen labada ciyaaryahan ee ugu cabsida badan horyaalka Premier League ee wada jira, gaar ahaan markii Zaha uu wareegay Turkiga. xil ciyaareedkii 2023-24 wuxuu noqon karay kii ugu wanaagsanaa taariikhda Crystal Palace abid, sababtoo ah labaduba waxay abuureen 34 fursadood oo goolo lagu dhalin karo. laakiin hal arrin ayaa dhaaftay. Easy waa uu dhaawacmay bartamihii xil ciyaareedka, Olisena waa uu dhaawacnaa bartamaha xil ciyaareedka. waxay labadoodu ku soo wada bilowdeen 9 kulan oo kaliya. kulamadaasina waxay heshay kooxdu 27 gool oo ay labadoodu ku lug lahaayeen, iyada oo heshay 21 dhibcood 9kaasi kulan. 6 kulan oo aysan labadooduba wada ciyaarinna waxay kooxdu heshay kaliya 5 dhibcood. haddii ay labadooduba ahaan lahaayeen heerkooda ugu fiican iyo kuwa caafimaad qaba, waxay ku dhamaysan kartay kooxdu sida la sheegay kaalinta saddexaad, iyaga oo 3 dhibcood ka dambeynaya kooxda horyaalka qaaday. haddii ay ku jiri lahaayeen markii ay labadooduba ka maqnaayeen xaaladoodiina waxaa la sheegay inay ku jiri lahayd kooxdu iyadoo u dagaalamaysa sida ay uga badbaadi lahayd inay u dhacdo heerka hoose. dabcan waxaad fahmi kartaa wada shaqayntoodu waxay keeni karto, gaar ahaan 6dii kulan ee ugu dambeeyey labadooduba waa ay soo noqdeen, waxayna badiyeen 6daasi kulan iyaga oo garaacay kooxo ay ka mid yihiin Liverpool, Manchester United, Newcastle iyo Aston Villa. Easyna waxa uu dhalinayay kubadaha loo yaqaan laba lugootiga isagoo oo goosmo ku dhaafayay gool hayayaasha. khubraduna waxa ay yiraahdeen labadoodu waxay u ciyaari karaan koox kasta oo adduunka ah. Easy xitaa waxaa lagu daray listiga ciyaartooyda Yuurada ee 2024, laakiin Bayern Munich ayaa qaadatay Olise
markaasna waxaa laga qaatay garabkii saaxiibkiisa ahaa cid kastana waa ay ka shakiday Easy in kaligiis uu kooxda jiidi karo dabcan kuwaasina aad ayay u qaldanaayeen haddii xil ciyaareedkii 2023-24 dadku ay u arkayeen kii ugu fiicnaa taariikhda Crystal Palace 2024-25 ayaa noqon doona dhaawacyadu waa ay sii jireen oo Easy waxa uu maqnaa ciyaaraha qaarkood sida November iyo February ilaa iyo inta uu ciyaarayna 13 gool ayuu ku lug lahaa 23 kulan balse Crystal Palace wali waxay joogeen kaalin 13aad ee horyaalka Premier League markaasna tababarahooda Glasner ayaa fahmay caqabadii ugu dambeysay waxa uu yiri Easy mararka qaarkood si aad ayuu u fikiraa waxaan u sheegay tababarka 99 ka mid ah boqolkii waa dhalisaa goolasha ma ahan inaadan awood lahayn waxaa jirta wax maskaxdaada ku jira wax kasta oo maskaxdiisa ku jirayna dabcan waa ay furmeen markii uu soo laabtay Easy waxa uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Ingiriiska waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay Crystal Palace oo Ingiriiska u dhaliyay gool 1976 taasina waa heer uu gaaray dabcan kadib isaga oo ku dhowdaad 27 sano wax waliba waxay u dhacayeen si isdaba jooga 5 maalmood kadibna waxa uu ka soo muuqday kulan quarter finalka FA Cup-ka oo Fulham waxaana uu dhaliyay gool uu ka dhaliyay meel fog mid kalena waa uu caawiyay isbuucii xigayna 2 gool ayuu ku caawiyay Brighton goolna waxa uu ka dhaliyay Manchester City markii hal bil ay ka harsaneed xil ciyaareedkana waxa uu gool dhalinayay 5 kulan oo xiriir ah oo ay ku jirto mid cajiib ah uu ka dhaliyay Arsenal goolkii semi-finalka FA Cup-ka iyo goolkii barbaraha ee Nottingham Forest iyo dabcan 2 gool uu ka dhaliyay Tottenham hase yeeshee midda ugu muhiimsan waxay ahayd goolka kaliya ee finalka FA Cup-ka Crystal Palace 2 final ayay hore u tagtay midna kuma aysan guuleysan waxaana ay haysteen khaanad maran oo koob la'aan ah laakiin hadda waxay ka badiyeen Pep Guardiola iyo kooxdiisa Man City waxayna u soo baxeen Europa League Easyna waxa uu yiri tani waa waxa ay riyooyinku sameeyaan balse riyadu ma dhammaan wali xil ciyaareedka xiga Community Shield-ka kulan ay la ciyaareen Liverpool oo koox awood badan oo 10 dhibcood ku qaaday horyaalka xil ciyaareedkii hore ayaa markasta gool kala hormareysay labada jeerna waa ay barbareeyeen rigoorayaal ayayna ku guuleysteen koobkoodii labaad oo weyn muddo 6 bilood gudahooda kadibna taariikh ayay noqotay haddaba mar kale Tottenham ayaa soo raadisay markan wax walba waa la isla qaatay laakiin kadib socdaal 14 sano ah oo ka soo bilowday markii Arsenal laga ceyriyay Easy ma uusan awoodin inuu qalbigiisa ka saaro kooxdaasi si uu naftiisa u dajiyana waxa uu si toos ah u wacay Mikel Arteta waxa uu u baahnaa inuu ogaado haddii albaabka naadigiisa carruurnimadu uu dhab ahaantii ka xiran yahay weli iyo haddii kale balse lama filaan albaabku waa u furnaa boos ayaa u bannaanaaday wax walbana si degdeg ah ayay u dhaceen warbaahintu waxay sheegtay inuu Arsenal ku biiray kahor inta aan Tottenham la ogeysin xitaa in bartilmaameedkoodii uu isbedelay 2 maalmood kadibna waxa uu taagnaa bartamaha garoonka Emirates isaga oo sugaya in la soo bandhigo dabcan waxay ahayd wax cajiib ah goolkiisii ugu horeeyay waxa uu noqday goolkii bisha goolkiisii labaad saddexaad iyo afraadna dhammaantood waxa uu ka dhaliyay Tottenham shirkii jaraa'id ee ka hor ciyaarta tababaraha Tottenham Thomas Frankie waa uu inkiray cid la yiraahdo Easy hase yeeshee nasiib wanaag kaftankaasi waa la eeday kulankaasi waxa uu dhaliyay saddexleedii ugu horeysay xirfadiisa iyo sidoo kale hadalkiisii ugu horeysay ee darbiga waqooyi London isaga oo jira da'da 27 sano dabcan kanina waa hadalkii ugu horeeyay ee la dhaliyo kulankan tan iyo 1978